kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka oo idinkaga imaanaya HBTV. barnaamijka ayaa waxaa ku soo qaadanaya dowladda Iiraan oo ka digtay isirsifaynta Falastiiniyiinta iyadoo magaalada Washington ee dalka Mareykanka ay ka bilaabanayso booqashada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku tagayo dalka Mareykanka. waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku sugan magaalada Washington ee dalka Mareykanka ayaa waxaa la filayaa inuu halkaasi kula kulmo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, iyadoo sidoo kale lagu wado inay ka wada hadlaan wejiga labaad ee heshiiska xabajoojinta ee Xamaas. ka hor inta uusan ka ambabixin magaalada Tel Aviv, ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa sheegay inuu kala hadli doono Donald Trump guusha ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan Xamaas, ka hortagga Iiraan iyo sii deynta dhammaan maxaabiista markii uu la kulmo madaxweyne Trump. waxa uu noqon doonaa kulankii ugu horeeyay ee madaxweyne Trump uu la yeesho hogaamiye ka socda dal ajnabi ah tan iyo markii uu ku soo laabtay aqalka cad ee dalka Mareykanka 2 toddobaad ka hor. taasna waa mid markaasi mudnaanta koowaad uu ku siiyey ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, iyadoo siyaasiyiintana ay ku tilmaameen mid muujinaysa xiriirka weyn ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu isna sheegay in booqashadani ay marqaati u tahay isbahaysiga ka dhexeeya Israa'iil iyo Mareykanka. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in go'aanada dagaalka ee Israa'iil ay wax ka bedeleen xaaladda gobolka Bariga Dhexe, wuxuuna intaasi raaciyay haddii Israa'iil ay hesho taageerada madaxweyne Trump ay sii socon karto xaaladda. waxa uuna sheegay inuu aaminsan yahay inay si dhow ula shaqayn doono madaxweyne Trump, isla markaana dib u habeyn weyn lagu samayn doono sii xoojinta xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Mareykanka. haddaba dowladda Iiraan ayaa waxa ay diiday markaasi qorshaha qoomiyad sifaynta ee uu hormuudka ka yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyo sidoo kale xasuuqa Israa'iil ka sii wado marinka Gaza iyo daanta galbeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in qorshaha isirsifaynta ee Trump ee Falastiiniyiinta uu doonayo inuu ka sifeeyo magaalada Gaza inay tahay dagaal qowmiyadeed oo ay doonayaan in qowmiyadda Falastiiniyiinta laga sifeeyo dhulkooda, oo ayna tahay markaasi mid ay doonayaan in Netanyahu uu ka dhaadhiciyo xukuumadda Washington booqashada uu ku joogo dalka Mareykanka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan ayaa u sheegay wariyaasha intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo toddobaadle ah in beesha caalamka ay tahay inay Falastiiniyiinta ka caawiyaan inay helaan xuquuqdooda ka tashiga beddelkii qorshahan qasabka ah ee isirsifaynta looga baahan yahay in looga hortago, iyadoo Donald Trump uu doonayo in dadka Falastiiniyiinta loo raro dalalka Jordan iyo Masar. waxa uu sheegay in Iiraan inay si dhow ula socon doonto safarka Netanyahu uu ku joogo dalka Mareykanka, saameynta uu ku yeelan doono arrimaha ku xeeran dagaalka Gaza. inkastoo xabajoojinta Gaza ay taagan tahay, ayaa haddana waxaa jira dembiyada iyo xasuuqa ka socda marinka Gaza iyo daanta galbeed. sida ay sheegtay qaramada midoobay, waxaa laga soo xigtay waxay u muuqataa in xasuuqa lagu wado dadka Falastiiniyiinta uu weli kasii soconaya daanta galbeed. dembiyaduna waxaa lagu wadaa inay noqdaan kuwo soo noqnoqda. wararkani ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee Carabta ay sidoo kale diideen barakicinta Falastiiniyiinta ee Gaza xaalad kasta ama cudurdaar kasta oo uu la yimaado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
daawadayaal barnaamijka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Aweys Foodey tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doono waxaa idinku dhaafayaa intaas iyo nabadgelyo.